السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين عاشقين أصحابي هدي أد نقع سبتها channelka subscribe like وحقاقة هدي أد نلتوقتين أد بعد ما تنتهي مكو سلامة يا رمانتين ما أنت وحن ربع أصحابي إن أنكهد له قصة لعضي قصة داس وحا إلي سوداكتي gabar Soomaaliyeed baa ila soo leeytay qisadaas bal idinkuna ila arka oo dhinaciina talada ka soo dhiiba asxaabay laakiin gabadhan waxay soo weydiisay qisay ila soo wadaagtay tala bixin baan marka aan rabaa idinkuna bal talada dhinaciina magaceeda xitaa aan sheego mar raba gabadhan waa gabar Soomaaliyeed waa gabar weyn waa gabar caruur leh waa gabar reer leh waa gabar meel degan oo family ah laakiin qisada ay ila soo wadaagtay waa qiso aad وحنون بدن أصحابي قبضنا بحيجوا جرت بدن السعودية العربية سعودي بيجوكتي سعودي مركي جوت لك أسيك شقيسن جرتي هالقاس ما يدوك شقيسن تبع مال ما كمد باوحة صامرتي الرن أن آد ولا فتشعي أنا وبا قبل مركي إلى وذاكتي أو يعني بح عن كتر ما بقى خانة marka gabadhan wax arintan say u qarsanayso waxay tir intaan ka badan ma qarsan karo gabadhan iyadoo maalin soo shaqo tagtay baa wadada laga afduubtay baabuur askaraanahay istaag dhac gaari baa lagu ritay gabadhi gaarigiisa ku raacday afka laga xiray ma hadli kartid aan jay sida loo wado baa waxaa la geeyay meel baadiye ah gabadhi baadiye xoolay ah baa la geeyay nin ari dhaqda baa la geeyay xaafadiisa halkaan aad joogaysaa la yiri halkaan baad joogaysaa ma hadli kartid jooda tiraahdidna waa lagu bareynaa cid ku arkaysana ma jirto gabadhi meeshii bay joogtay way yaabtay halkaas fadhinaysaa la yiri maalin alla markii aan maskaxdiisa ka maagay ninkan buu ku fasaxayaa ninku waa rabaadiye badow ah oo badowda xoolaha dhaqada waa Sacuudiyaanka gabadhi meeshii bay joogtay waxay ku hadasho male wax kaalmeenay male ma qaylin karto oo sheekada Sacuudiga way wada qabaan oo dadkaas markay gacanta u gala waa bas waa geeri iyo nolol wax ka dhaxeeya male dadku waa badilaan inta dilaan oo qalaan bay buuraha ka tooraan gabadhan way iska aamustay way iska joogtay meeshii halkeeda iska joogtay waa dadka sheeka dhaafine wiil ninka ariga ay u dhaqdo ariga u raacdo subaxdii ari raacdaa wuxuu daba dhigaa nin kale asagoo haysto oo u shaqeeya buu leeyahay waardiye gabadha iyo fakanina tooreey waxba dhinacyada ku wataa oo hadday istiraaxataa fako duurka ma carari karto ninku marka ay soo haydaan habeenkii wuu xareystaa isagaa xareysta qolkiisu geystaa anaagaysta saynaag u tahay u xareysanta maalinta arigay raacdaa gabadhi markii intaas muddadaas ku jirtay oo sidii ku noolayd oo iska joogtay oo dhiman oo isa noolayn oo xaaladaas ku sugnayd baa waxaa ku soo baxay gabadhi baa ku soo baxay yeelatay waxaan badowga wax ma fiiriye waa hawshiisu iska wataa xaamilay noqotay 9 bilood bay noqotay gabadhi markuu arkay inay xaamilo tahay buu wuxuu yiri dhageysto gabaray anigu waxba ilmahaaga ma u baahni mana rabo lacag baan ku siinayaa waa lagu qaadayaa haddaad isoo sheegato yaa aday ku taalaa aska dhaafinaya adduunyo dambe geedi ka goyn maysid xagaa lacag oo yiro wuxuu yiri markaad dhasho isticmaal hana isoo sheeganin Soomaalida dhaxgal soco Sacuudiga weyn yahay indhaha laga xiray baawra lagu soo qaaday gabadhi jay waa la soo kaxay waxaa la keenay jidda meesha laga soo galo gudaha ma ahan magaalada gudaheed ma meesha laga soo gal controlkeeda markii waxay soo dhaafeen baa la dajiyay indhaha inta laga furay Soomaaliyeed jidda waa joogtay
gabadhiyo xaamilo ah baa gabdhihii ay la deganaan jirtay oo sacuudiga bay u timid gaw iridda habeenka dambe waa kanaa waa laga furay waa la wada naxay alla ma nooleed adiga maa nool heblaayo ii waran see tahay naa maxaa kugu dhacay ciddaadi waa kaa sabarta inaad dhimtaa lagu malaynaayo waaba lagu isnaa gabadhi waxay tiri amarkaasaa igu dhacay yaa amarkaasaa igu dhacay maxaa tala oon sameeyaa saan yeelaa arrintan maxaan ka qaban karaa waa gabdhihii la deganaa guriga walaale bal iska fadhiisaa layidhi wixii ilaahay kuu qoro baad maraysaaye ciddayni maxaa u sheegaa ilmaha xagee ka keena dileeda maxaa idhahdaa bal iska aamusaa layidhi gabadhi sidii bay gabdhihii ula joogtay way dhashay gabar bay dhashay gabar sacuudiyaan ah gabar bay dhashay dadkii waa wareysteen oo gabdhihii waxay dhaheenayaa waa lay xoogi waxbaa soo sheegine yaa iska aamuso qarso nin carabaa isguursanayo soo kala tagno yaman iyo meelahaasan ka imid iska dheh marka asxaabe dadweynu soomaali intay daawanaysa qarsi gabdhaha soomaali intay balaayo qarsanayaan halkan kama dhowa gabadha beentay sheegtay hadday dacwoon lahayd oo saldhig boolis iyo meel iyo soomaali kale inta u sheegto ninkaas waxaa laga yaabaa in la soo heli lahaa yaa lagu ogaan aamus baa horta dhib noo keenta gabadhii dee sidii beenta ku sheegtay wiil soomaaliya gursaday nin carabaa iga dhalatay ilmahan oo yeman ah oo yeman jooga waa gursatay wiil soomaaliyeed baa gursaday ilmay u dhashay yurub bay timi hadda gabadhii markii hadda yurub timid bay arrintii la xumaatay oy aragtay gabdho badan oo ka sheekaynaya kufsiga iyo dhibaatada iyo tacadiyada markaasay istiri arrintan aad qarsan jirtay ilaa berigii bal maanta sheeg sida bay gabadha ku sheegtay arrintii oy gabar kale usoo gudbisay fariinta oy tiri walaale arrintaasaa igu dhacdee bal anigana iila wadaag dadweynaha waxay ra'yi ka qabaan maxaan samayn karaa hadda idinkaa idin weydiiye nin ari sacuudi ku raacayo oo badow oo duurka jooga yaa gabar xoogay oo ilmo ka dhalay oo soo eriyay soo abuse garay maxaa laga samayn karaa hadda bal idinkaa idin weydiinaya arrintaas asxaabey wixii tala ah bal ka soo jeediya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu channelka hadaa ku cusubtahay asxaabey liketa shareta commentka waa xaggaaga haddii aad nala joogtana mar labaad yaa my familykaygaa tahay waa idin jeclahay I love you